kusoo dhawaada asxaabay Haybe Movies. Fiidiyowgeenan maanta waxa uu kuu sharaxi doonaa filim Korean ah oo la magac baxay Gang. Filimkeenani waxa uu ku saabsan yahay arday aad u dhaqan xun oo laga soo eriyay iskuulka isagoo loo wareejinayo dugsi kale. Dugsigiisan cusub waa mid gaar ah halkaas oo ay dhammaan ardaydu ay leeyihiin ugu yaraan hal fal dambi. Iskuulkan dagaalka waa lagu ogol yahay oo xitaa waa lagu tartamaa halkaas oo qof kasta uu sharad ku dhiganayo dagaalka. Haddaba sidii ayaa uu ardaygani halkaas ku tegay? Weli miyuu u dhaqmi doonaa talow sidiisii hore? Waxaynu ku ogaan doonaa fiidiyowgeenan maanta. Filimkeen waxa uu ku bilaamayaa ninkan oo lagu magacaabo Ji, kaas oo ah arday dhigta dugsiga sare. Waxa uu ku dhow yahay in uu maamuluhu uu doonayo inuu ka eriyo dugsiga sababta oo ah waxa uu dhaqmayaa sidii burcada isagoo u agajuglaynaya ardayda kale. Walaashiisa ka weyni waxay isku daydaa inay ku qanciso maamulaha iyadoo weydiinaysa ciqaab ka fudud halkii uu ka eri lahaa walaalkeed. Laakiin maamuluhu waxay u sheegaysaa inay dhowr jeer ka waanisay ficiladan. Si kastaba ha ahaatee, Ji isagu ma daneeyo hadallada haweeneydan maamulaha ah oo xitaa mararka qaar waa uu ku majaajiloodaa maamulaha. Taas awgeed maamuluhu waxa uu bedelay dugsi kale. Waa dugsi go'doonsan oo aan la garanayn kaas oo ku yaala dhisme hore oo xabsi ahaan jiray. Ardaydu waxa ay sidoo kale geysteen ugu yaraan hal kiis amaba hal fal dambiyeed. Maalintii xigtay Ji waxa uu aaday dugsiga. Ji waxa uu ku fikirayaa inuu xukumo dugsiga. Si lama filaan ah ayaa ay kubadi wajiga kaga dhacday Ji. Waxa uuna u yimi koox gangsters u eeg. Marka uu arkay Ji waxa uu isku diyaariyay inuu la dagaalamo, laakiin dhammaantood si lama filaan ah ayaa ay u raali geliyeen Ji iyagoo u sheegay in ay kubadu ugu dhacday si shil ah. Kadib waxa uu aaday xafiiska maamulaha isagoo kula kulmay maamulaha qol wasakhaysan. Kadib maamuluhu waxa uu eegayaa faylashiisa, laakiin waxa uu la yaabay habdhaqanka maamulaha ma aha mid daneynaya waxbarashadiisa oo xitaa waxa uu weydiinayaa inuu dagaalami karo. Taas oo uu ku wareeray Ji. Maamuluhu uma uusan sheegin habdhaqanka iskuulka ee waxa uu ku amrayaa in uu aado fasalkiisa. Isagoo u sii socdo fasalka waxa uu arkay arday isagoo weydiinaya fasalka. Ardaygiina si degan ayaa ugu tilmaamaya, laakiin waa uu agajuglaynayaa Ji arina ku badraansanaa. Markii uu soo galay fasalkiisa, Ji waxa uu si toos ah u weydiinayaa cidda ugu xooga badan halkan, laakiin qofna wax danayn ah muu siinin. Mid ka mid ah xeertii kubadda ku dhufatay ayaa u imaanaya si uu iskugu dayo inuu la hadlo Ji. Isla markiiba gambaleelka nasashada ayaa la garaacay. Qof kastaana oo halkaas joogay waa uu ka baxay fasalka. Jina waa uu raacay oo waxa uu arkay iyagoo dabaqa hoose galay. Waxa uu arkay in dhammaan ardaydu ay joogaan halkan. Waxa uuna la yaabay markii uu arkay in ay meeshu tahay goob dagaal oo ay maalin kasta ku dagaalamaan ardaydu. Ardaygii isku dayayay inuu la hadlo ayaa u sheegay in ay tani tahay ciyaarta ugu weyn ee ay ardaydu ciyaarto, halkaas oo uu dagaalku yahay arrin waajib ah. Sidoo kalena way ku sharatamaan oo waxa ay ku heli karaan lacag badan sharadka iyo dagaalkaba. Xitaa macallimiinta qaarkood ayaa sidoo kale halkan ku sharatama. Waxa kale oo jira sharci la yaab leh kaas oo ah in dagaalku aanu ka dhicin iskuulka daafihiisa kale ee uu ka dhacayo halkan oo keliya. Waana xeer loo dejiyay iskuulka sababta oo ah dhammaan ardaydu waa dambiilayaan. Waxayna u malaynayaan inay fikrad fiican ay tahay in dagaalka waajib looga dhigo. Sidaas daraaddeed kan ugu xooga badan waxa uu noqon doonaa kan maamula dhammaan iskuulka iyo dhalintuba. Macallimiintuna waxay isku waafaqeen in arrinkani uu ka hortagayo iska hor imaad aan loo baahnayn iyo qalalaasahaba. Hadda boqorku waa arday la yiraahdo Iron Fist. Waa arday aad u adag sidoo kalena la tababartay kooxda qaranka, laakiin hadda waa la la'yahay shil soo gaadhay dartiis.
sababtaas awgeed booskii hadda waa uu bannaan yahay. waxaa jira saddex arday oo booskaasi isku haya. kan ugu horeeya waa ciyaaryahan Ji-tae kaas oo lafaha bani'aadamka u jajabin kara si fudud. kan labaad waa dagaalyahan dhanka xuska ah oo loo yaqaano Hot Dog maadaama uu u dhaqmayo sidii dagaalyahan waalan tan iyo markii ay qoyskiisu dhinteen. kan ugu dambeeya waa Siik kaas oo run ahaantii ah musharaxa ugu wanaagsan guud ahaan. dhammaantoodna waxay isku dayeen inay ka guulaystaan se dhammaan waa uu ka adkaaday. maalintii xigtay Ji waxa uu si toosa ugu yimid Siik si uu ula dagaalamo, laakiin si degan ayaa uga diiday se waxa uu ku sii madax adeegay in uu la dagaalamo. markii uu arkay taas Siik waxa uu wacay kooxdiisii si uu cashar u baro cunugan. Ji waxa uu ku naxay markii uu arkay inuu jirkoodu dhisan yahay se markii ay dagaalameen Ji waa la garaacay oo waa uu suuxay. waxayna ka bixiyeen dharka kuna reebeen maryaha hoose oo keliya. waxayna ka qaadeen sawir iyaga oo u diray dugsiga. hadda qof kasta waxa ugu yeedhayaa halowgiiti. shilkaasi kadib hamigii Ji waa uu kordhay oo waxa uu iska diiwaangeliyey kooxaha dagaalka ee heerka koowaad. waxa uu arkay Siik oo u dagaalamaya oo si fudud u garaacaya cadowgiisa. Ji waa uu naxay oo hadda waa uu ka baqanayaa isaga. maalintii xigtay Ji waxa uu bilaabay dagaalkiisii ugu horreeyey. kalsoonida ku jirta awgeed waxa uu dhayalsaday cadowgiisii, laakiin waa la garaacay dhowr jeer sababta oo ah isagu waxa uu yaqaanay dagaalka wadooyinka oo keliya. si hadda waxa uu la qabsaday qaabka dhabta ah ee dagaalka isagoo 360 digri u rogay dagaalka isagoo ka jaray madaxiisa waana uu ridayaa waana uu ka guulaystay. qof kasta waa ay ka naxayaan natiijada. Ji weli kuma qanacsana dagaalkiisa oo waxa uu bilaabayaa in uu si adag u tababarto. maalinba maalinta ka dambaysa waa uu guulaysanaya oo waxa uu ka faa'iidayay lacag fara badan. dhanka kale maamuluhu kuma uusan qanacsanayn arrinkaas maxaa yeelay waxa uu ku khasaarayay shiradkiisa. waxa uu ku amray Ji-tae in uu ka adkaado kulanka soo socda isagoo og in ciyaarta xigta uu ka hor imaanayo ciyaartoyga judo. Ji waxa uu YouTube-ka ka baaray sida looga guulaysan karo judo. maalintii xigtay ciyaarta ayaa ka bilaabantay isagoo Ji dhowr jeer ku dhuftay madaxa, laakiin Ji waxba ma dareemin. si xun ayaa uu dhowr jeer u garaacay. waxa uu iska bixiyay garamadiisii si uuna si sahal ah ugu qaban. sidaasi awgeed judo mar dambe ma heli doono fursad uu ku qabto Ji-na waxa uu garaacay judo ilaa inta uu ka dhacay. hadda waxa uu ka guulaystay judo. ardaydiina waxay la dhaceen adkaantiisa. markuu arrinkaasi maqlay Hot Dog ayaa u yimid si uu ula tartamo. iyagoo aan wax badan wada hadlin waxay cayimeen taariikhdii ciyaarta. waxa timi maalintii la ciyaarayay. labadooduba waxay ku kalsoon yihiin in ay badin doonaan ciyaarta. markii ay ciyaartu bilaabantay Ji waxa uu dagaalamay qaab dagaaleedkiisii caadiga ahaa, laakiin Hot Dog waxa uu ahaa mid aad uga dheeraynaya. waxa uuna awooday inuu u garaaco sidii qof waalan. Hot Dog ayaa ay ciyaartu dhankiisa u janjeedhaa ilaa si lama filaan ah ay silsiladii gacantiisa ugu soo dhacday. sababta oo ah waxa uu aaminsan yahay in ay silsiladani xidhiidh la leedahay qoyskiisa inta aanay dhiman ka hor. waxa uu lumiyey deganaanshiyihii. Ji-na si fudud ayaa uu garaacay ilaa inta uu dhulka kaga dhacayay. qof kasta waxa uu ku faraxsan yahay in uu guulaysto maanta. se waxa si kadisa u soo noqday boqorkii ka maqnaa dugsiga. qof kasta oo meesha joogayna waa uu yaaban yahay. maalintii xigtay Siik waxa uu la kulmay Iron Fist. waxa uu ka codsaday in aanu soo faragelin kooxdooda dagaalka, laakiin waxa uu iska nindhatiray Siik oo xitaa waxa uu rabaa in uu tirtiro xeer kasta oo u yaala dugsiga. waxa uu rabaa in ay ardaydu dagaalamaan goor kasta iyo meel kasta oo ay rabaan. waxa kale oo uu rabaa in la dagaalamo ilaa inta la dhimanayo. Siik waa uu hanjabay oo waxa ay isla aadeen xagga iyo xagga hoose, waxayna u dagaalameen si gaar ah. Siik waxa uu isticmaalay qaab dagaaleedkiisii oo dhan, laakiin Iron Fist waxa uu muuqday inuu aad uga xoog badan yahay, isagoo garaacay ilaa inta uu ka suuxay Siik. Iron kuma uusan qanacsanayn intaas,
xitaa waxa uu si xun u garaacay mid ka tirsan ciidamadiisii Jed iyo Hotdog sidoo kale iyagana waa uu garaacay. Hadda boqorkii iskuulka ayaa soo noqday, meeshana isaga ayaa xukuma. Qof kasta waa inuu u hoggaansamo amarkiisa. Qaar ka mid ah iyaga waxa uu ka dhigtay koox, weliba si xoog ah. Dhowr bilood ayaa ka soo wareegtay, qofna kuma uusan dagaalamin qolkii hoose. Sidoo kale qof kasta si xor ah uma qabsan kara hawlihiisa ilaa G, kaas oo saaxiibkii kula talinaya in uu isqariyo. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Iron waxa uu soo raadinayaa G. Waxa uu weydiinayaa saaxiibkii, laakiin saaxiibkii waxa uu sheegayaa in uu ka cararay meesha amaba uu ka baxsaday. Iron iyo saaxiibadii waxa ay garaaceen ninkii. Markii uu maqlay G in loo garaacay saaxiibkii isaga daraadii, waxa uu ku soo noqday saaxiibkii isagoo arkay saaxiibkii oo dhulka yaala. Waxa uu si lama filaan ah ugu tegay Iron isagoo keligii ah. Iron waxa uu ku amray kooxdiisa inay garaacdo, tirada oo ka badneyd awgeedna G waa la garaacayaa. laakiin waxa uu yimi cadowgiisii hore si ay u caawiyaan. Hadda waa Jitai, Hotdog iyo Sike, iyagoo u yimi inay garaacaan Iron iyo ragiisa. Hadda Iron Fist waa inuu la dagaalamo G. Waxay aadeen qol aan ciidina soo dhexgeli karin, waxa ayna bilaabeen dagaalka. Iron waxa uu muuqdaa mid aad uga xoog badan G. G waxa ku dhacaya juga fara badan, laakiin isma uusan dhiibin ee waxa uu ka sii qaadayaa dhiirigelin waxa uuna ka guulaysanaya Iron. Waxa uuna awooday in uu feer la dhaco ilaa inta uu ka dhimanayo. Dhammaadka filimka, qolka hoose ayaa mar kale sidiisii ku soo noqday, feertankina sidii buu ku soo noqonayaa. Filimkuna halkaas ayaa uu ku soo gabagaboomaya.